deeqdan lacageed ee maanta ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan ay u qaybiyeen qaar ka mid ah carruurta aqoonta ah ee ku nool magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan si ay ugu ciidaan maalinta barakeysan ee Ciidul Fidriga ayaa waxa soo dhibay isla markaana iska soo ururiyay qaar ka mid ah qurba joogta ka soo jeeda gobolka Hiiraan waxaana carruurtani mid waliba la siiyay lacag dhan $40 Mareykanka si ay maalinta farxadda ula qaybsadaan carruurta kale gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Maxamed Cabdullaahi Buraale iyo Faarax Diir oo ka mid ah ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan ayaa waxay faahfaahin ay ka bixiyeen dadka soo dhibay deeqdan lacageed iyo tirada carruurta aqoonta ah ee maanta u qaybiyeen lacagtaasi maalintii ugu dambeysay bisha Ramadaan walaalaheena dibadda ka soo dhibay lacagaha oo ku sadaqaystay carruurtan aqoonta ah oo abahood Ilaahay oofsaday kuwaas oo aan runtii maantay waalidiintood ama qaarkoodna hooyadood ay dhimatay kuwaas oo maanta aan awoodin in dadka abahood nool yahay ama dadka waxa haysta ay la ciidaan ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Aadan Cumar Cabdikariin Xuseen Xasan Garabay Cabdullaahi Maxamed Siyaad Shabeellow iyo intii kale iyo gabadha kale oo soo sadaqaysatay lacagta waa mahadsan yihiin ajir xasanaad Allah ka siiyo runtii maanta Beledweyne waxa ka dhacay masiibo waxa ka dhacay biyo baxo waxa ka dhacay biyo baxa labaad waxa ka dhacay macnaha waxa jiray bishii Ramadaan oo barakeysneed oo ayadana culeyskeeda iyo fudeedkeeda labada wadatay waxa la joogaa xilligii Ciida marka maanta maadaama ay tahay maalinta bishii Ramadaan ugu dambeysay birina ay tahay la yiraahdo Ciid sida la qiyaasayo inay macnaha carruurtan aqoonta ah oo abahood dhintay qaarkoodna hooyadood ay dhimatay inay dadka abahood u nool yahay iyo dadka wax haysto ay la ciidaan ay farxadda la qaybstaan maanta iyo 46 qofood ayaa la siiyay min $40 runtii meeshan waxa soo keenay 48 aqoon ah maaragtay qaarkoodna aqoon ay rajeeyeen sababta saas u suubinayna waxa waa maadaama ciid la gaaray aqoontan ay dadku ugu nugul ugu dhibka badan ugu rafaadka badan way qof aan aabba lahayn dhibkiisa uu ogyahay aabaha wanaagiisina maaragtay ilmahana waa taqaan ilmaha macantooda qofkii wax dhala og maaragtay marka jaceylkii aabanimo ama haduu ka baxay meesha dibkeeda leedahay qaarkoodna maaragtay hooyaba ma lahan maaragtay runtii lacag $1950 waaye $1950 kaas $50 waxaan u qaybin 48 oo min $50 min $40 u siin lacagaas waxa soo dhiibtay dad kala duwan soo dhiibtay lacagtaas $100 kamid ah oo la siiyay 25 qofood waxa soo dhiibtay Cabdikariin Bullah oo wakiilka imaarada jaariyada Freeburg ee wadanka Switzerland Cabdikariin maaragtay khayr Allah ka siiyo waa nin reer Beledweyne asale runtii $1,000 oo soo dhiibatay waxa la siiyay 25 qofood min $40 loo siiyay Xakiima Xasan Fiidow oo maaragtay Ingiriiska joogto waxay soo dhiibatay $600 ayadana waxa la siiyay 15 qofood loo siiyay 15 carruur aqoon loo siiyay sidoo kale Cabdullaahi Shabeellow asna wuxuu soo dhiibtay oo South Africa jooga $200 waxa loo siiyay $200 min $40 oo lagu qaybiyay 5 qofood loo siiyay khayr ajir xasanaad Allah ka siiyo Cabdullaahi waxa uu dambeeyay Cabdiraxmaan Aadan Cumar oo maaragtay $150 soo dhiibtay waxaan ugu bixinay maaragtay 3 qofood wadarta guud waxay tahay marka 48 qofood oo maaragtay on siinay $1950 intii soo baxsatay lacagtaas ajir xasanaad Allah ka siiyo sidoo kale ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan maaragtay dhamaantii dhalinyarada reer Hiiraan ay sida fiican uga qayb qaadatay soo xushay dadkan ajir xasanaad Allah ka siiyo soo koobi karin bilaa tawfiiq mid ka mid ah waalidiinta oo isna goobta ka hadlay ayaa uga mahad celiyay dadkii soo dhibay deeqdan lacageed ee maanta loo qaybiyay carruurta aqoonta ah si ay ula qaybsadaan farxadda ciida barakeysan ee Ciidul Fidriga maxaa ahay dhalinyaradii waxaan soo bixisay ilmaha aqoonta ku sadaqaysay waa mahadsan yihiin si wanaagsan wax u bixiyeen Allah guuleeyo muxuu ahay baahidii wixii cunugii aqoontii baahidii haysay bariga waa ka farxiyeen waa ku iideysanayeen 100% Khalid Maxamed Ismaaciil Kaase telefishinka Somali News Beledweyne